anigoo ka wakiila wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha oo gudanaysa waajibaadka dastuurka qaranka qodobkiisa 15aad faqradiisa koowaad iyo xeerka maamulka maaliyadda xeer number 5/2016 qodobkiisa 5aad waxaan si weyn ugu faraxsanahay in maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bishii 12aad 2025 aan idin soo gudbiyay miisaaniyadda guud ee dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee sanadka 2026 miisaaniyadda 2026 waxay ka kooban tahay miisaaniyadda dawladda dhexe miisaaniyadda hay'adaha madax bannaan ee macaashka sameeya miisaaniyadda dawladaha hoose miisaaniyadda mashaariicda banka adduunka iyo mashaariicda banka horumarinta Afrika miisaaniyadda dawladda dhexe ee 2026 waxay ka turjumaysaa mudnaanta dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay siinayso xoojinta adeegyada bulshada difaaca ilaalinta amniga dhisida kaabayaasha dhaqaale iyo ilaalinta xasiloonida dhaqaale iyo maaliyadeed ee dalka iyadoo la waafajinayo himilooyinka qorshaha horumarinta qaranka ee saddexaad NDP3 iyadoo la tixgelinayo xaaladda dhaqaale ee gudaha iyo saameynta dhaqaalaha caalamkaba miisaaniyaddu waxay xoojinaysaa dheelitirka iyo kordhinta dakhliga gudaha maareynta kharashyada howlsocodsiinta iyo maalgelinta mashaariicda mudnaanta u leh qaranka Soomaaliland sidoo kale waxay adkeynaysaa daahfurnaanta isla xisaabtanka iyo ka qaybgalka muwaadiniinta si loo xaqiijiyo in miisaaniyaddu noqoto mid lagu gaadho koboc dhaqaale iyo horumar bulsho oo waara qaybaha miisaaniyadda 2026 miisaaniyadda 2026 ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka kooban tahay iyadoo faahfaahsan miisaaniyadda dawladda dhexe ee 2026 waxa weeye 2 trilyan 866 bilyan 183 milyan 568 kun iyo 109 shilin oo Soomaaliland taasoo ka noqonaysa saamiga miisaaniyadda 360 miisaaniyadda dawladaha hoose waxay dhan tahay 563 bilyan 771 milyan 919 kun 117 shilin oo ka noqonaysa 12% mashaariicda banka adduunka iyo banka horumarinta 800 milyan 713 kun 466 shilin taasoo ka noqonaysa 17% miisaaniyadda hay'adaha macaashka sameeya sida wakaaladda biyaha banka dhexe iyana waxay dhan tahay 354 milyan 290 milyan iyo 65 kun 130 shilin oo ka noqonaysa 8% sida ay ku tahay 100% miisaaniyaddii qarankan ee 2026 mudanayaal markaynu gaar u eegno daraska miisaaniyadda dawladda dhexe ee 2026 waxa ay muujinaysaa halkii ay ka ahayd 2025 2 trilyan 593 bilyan 411 milyan 251 kun 887 shilin waxa ay noqotay ay noqonaysaa 2 trilyan 866 bilyan 183 milyan 568 kun iyo 109 shilin waxa jiray farq korar ah oo dhan 272 bilyan 752 milyan 316 kun 222 shilin oo ah inay kor u kacayso oo aan ugu talagalay oo daraskaasi inuu noqdo 11% inuu ku dhino miisaaniyadda 2026 marka loo barbar dhigo tii 2025 waxa jirta miisaaniyaddii hore ee sanadihii 2022 2023 iyo 2024 uu ku yimid dhinaansho dhan celcelis ahaan 111 iyadoo miisaaniyadda 2026 marka la barbar dhigo ta 2024 ay dakhli ahaan kor u kacday 22% halka ay marka la barbar dhigo 2025 ay kor u kacayso 11%.
meelaha muhiimadda aanu saarnay waxaa ka mid ah korarkii 150 ka ciidamada oo kor qaadaya miisaaniyadda 4%. marka laga miisaaniyadda 2026 wuxuu ka noqonayaa 4%. korarkaasi waxaanu qorsheynay in laga daboolo korarka 111 ka ah ee aanu ku dhinnay. mudanayaal haddaan warbixin guud ka siiyo miisaaniyadda 2025 ku dalgalkii dakhliga oo doolarka miisaaniyadda 2025 wuxuu soo baxay sidii loogu talagalay iyadoo wasaaraddu samaysay dadaalo badan waxaanu noqday 5% dheeraad ah marka loo eego kii oo doolarka iga soo baxay. sida aynu ogsoonahay cashuurta dalku waxay ku tiirsan tahay ku tiirsanaan jirtay 76% cashuuraha kastamada. haddaba si kor loogu qaado cashuuraha bariga wasaaraddu waxay diyaarisay qorshaha salbalaarinta cashuuraha bariga iyadoo la adeegsanayo nidaamyada tiknoolajiyadeed ee u diyaarsan wasaaradda maaliyadda si buuxdana awoodda waxaanu saarnay dhamaystirka cashuuraha waaweyn sida cashuuraha iibka kirada shaqaalaha iyo ganacsiga iyadoo wasaaraddu ku guuleysatay inay si buuxda u dhaqangeliso cashuurta iibka ee shirkadaha korontada hudheelada wakaaladaha biyaha iyo shirkadaha isgaarsiinta oo qayb ka mid ah ay fushay qaybta harsan ee 5% aanu doonayno in fulilo sanadka 2026 inay si rasmi ah u fusho shirkadaha isgaarsiintu inay fuliyaan in 5% ay GST-ga ee la dhaqan geliyo 2026. dhinaca kastamada waxaa laga sameeyay dadaalo badan oo kor loogu qaadayo inay kordhaan badeecadaha soo degaya wasaaraddu iyadoo aan waxba ka bedelin tacriifadaha waxa ay samaysay inay dib u eegto tacriifadaha qaarkood. tacriifadaha qaarkood leeyahay waxa weeyaan waa ashyaada ama ay tamada soo degaya ee aanu u aragnay inay dekedeena ka baydheen maadaama ay dekedaha kale inaga jaban yihiin dib baanu u eegnay hoos baanu u dhignay waxaanu ogaanay in mugii ama foliumkii dekeda ka soo degayay oo kor u kacay oo ay u soo baydheen badeecadihii xagga dekeda berbera. waxaa kaloo sameynay oo nula dagaalanay kontrabanka waxaanu joojinay cashuur dhaafyada aan sharciga ahayn. macnaheedu waxa weeye cashuur dhaaf aan waafaqsanayn xeer uu baarlamaanku ansixiyey in lagu sameeyo cashuur dhaaf. waxaan dardargelinay shaqada dekeda berbera oo aanu ka wada shaqaynay shirkadda DP World in adeegeenu uu kor u kaco. sida aad ka warqabtaana iminka maraakiibtu waxay toos uga yimaadeen Jabal Cali waxaana toos ugu soo xidhaan dekeda berbera halkii ay markii hore ka qaadan jirtay 40 cisho ama 50 cisho waxay qaadatay iminka 20 cisho. taasi waxay kor u qaadaysaa tartanka dekeda berbera. markay tartanka dekeda berbera oo kor u kacana waxa kor u kacaya dakhliga qaranka ka soo gelaya hadduu yahay ka dawladda dhexe iyo hadduu yahay ka dekedaba. ilaahay wuxuu nagu guuleeyay inaanu gaarno yoolka dakhli isla markaana dhaafno dadaaladaas ay wasaaraddu samaysay natiijada ka dhalatay waxay keentay inaanu maareyno dhammaan kharashyadii aanu ku odoraysnayn miisaaniyadda qaranka 2025 oo ay ka mid tahay mushaharka iyo raashinka ciidamada madaniga ee la qarameeyey oo aan markii hore ku jirin doolarka 50% kilo kordhiyay oo aan ku jirin doolarka in dib bixinta deymihii yaalay xisaabiyaha guud ma deymihii kale qaranka kuwii yaalay xisaabiyaha guud ee lacag loo waayay ee yaalay miiska xisaabiyaha guud oo lacagtooda ay gaartay 110 bilyan oo shilin oo dhiganta 10 milyan oo dollar ama dheeraad dhammaantood waanu bixinay. sidoo kale waxaanu rajaynaynaa sanadka 2026 inaan xafiiska xisaabiyaha guud aanay ooli doonin wax kharash ah oo dheeraada oo la bixin kari waayo. siyaasadda miisaaniyadda 2026 waxay u faahfaahsan mushaharka iyo ciidamada la qarameeyay kordhintooda iyo mushaharka guud ahaan la kordhiyay 2025 la kordhiyay hawlgabka iyo xaqsinta shaqaalaha dawladda sanduuqa horumarinta dhalinyarada maamul daadajinta sida gobolka Togdheer horumarinta adeegyada bulshada iyo kor u qaadinta wadaniyadda oo wasaaraddan la yiraahdo wasaaradda dastuurka iyo xidhiidhka golayaasha aanu u sameynay miisaaniyad ay kor u qaado wacyigelinta muwaadiniinta ee xagga wadaniyadda. siyaasadda dakhliga ee 2026 dakhliga waxa uu ka imanayaa sidee ayay u suura galaysaa in 12% la kordhiyay aanu doolarka aanu ka dhignay inuu 12% kordho. waxay noqonaysaa sidan hoos u socota xoojinta cashuuraha alaabta iyo adeegyada gaar ahaan kuwa laga helo isgaarsiinta iyo korontada
la soo wareegida dakhliyada ay qabtaan wasaaradaha iyo hay'adaha dawladdu ee aan hore u soo gali jirin dakhliga dawladda kordhinta dakhliga iyadoo la baalinayo saldhigga cashuur bixiyaasha gaar ahaan cashuuraha bariga taasi oo aanu samaynay tababaro fara badan oo lagu tababarayo dadka cashuur bixiyaasha ah sidii cashuurta u bixin lahaayeen waxa kale oo aanu samaynay inaanu tiro koob ku samaynay guryaha kirada ah Hargeysa Burco iyo Boorama intaba aanu hadda ka wadno si loo helo tiro sugan oo cashuur bixin ah oo ah guryaha kiraysan iyo cashuur bixiyaasha kale iyo hay'adaha iyo businessyada aan markii hore diiwaan gashanayn kordhinta dakhliga iyadoo la balaariyay xoojinta cashuuraha gudaha ee ay ururiyaan dawladaha hoose iyo hay'adaha dawladdu waxa jira dawladaha hoose inay cashuur qabtaan anagoo kaashayna hay'adaha dawladaha hoose waxaanu sameynay in cashuur kasta oo ay qabtaan in ay dawladda dhaxana ay ka barbar qabato oo kor u kaco dakhliga ka soo galay sida kala wareejinaha oo kale xoojinta cashuuraha kirada daaraha iyo diiwaangelinta gobolada iyo maroojinta dhameeyay sidaan hore oo sheegay iyadana imikana Burco aanu ka wadno horumarinta iyo casriyeynta nidaamyada iyo hababka cashuur ururinta kor u qaadida iyo aqoonta xirfadaha shaqaalaha dakhli ururinta dhiirigelinta shaqaalaha dakhli ururinta waxa kale oo aanu kor u qaadnay aqoonta shaqaalaha ka shaqeeya kastamada si ay u kantaan cashuur bixiyaasha taasi waxay kor u qaadaysaa in lagu soo dhiirado adeega kastamada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland miisaaniyadda 2026 mudnaadaha wadaagayaasha miisaaniyaddu waxay ka kooban yihiin amniga waxbarashada caafimaadka maamulka wax soo saarka iyo deegaanka saamiga wadaagayaasha boqolkiiba 46 miisaaniyaddu waxay ku baxaysaa amniga boqolkiiba 12.8 waxay ku baxaysaa arrimaha bulshada boqolkiiba 40.6 waxay ku baxaysaa mushaarooyinka caafimaadka waxbarashada arrimaha noocaas ah wadaagayaasha tiradoodu sida aan idin sheegay ammaanku waa boqolkiiba 46.6 dhaqaalaha maamulka waxbarashada caafimaadku waa boqolkiiba 40.6 biyaha deegaanka tamarta kaabayaasha dhaqaale wax soo saarka iyo arrimaha bulshadu waa boqolkiiba 12.8 wadarta guudna saasay ku tahay boqolkiiba 100 maanta oo ay tahay bisho 7 December sanadka 2025 waxaan naga go'an oo aan ku codsanaynaa inaanu ka midhalno daraska dakhliga miisaaniyadda 2026 sidaa daraadeed waxaan golaha sharafta la ka codsanayaa in ay noo ansixiyaan miisaaniyadda 2026 si ay u noqoto mid shaqo gasha oo hawl gasha oo waajibaadkeedu gudata bilowga January oo mushaharooyinka loo bixiyo waxa kale oo wasaaradda maaliyaddu ay ballan qaadaysaa inay soo celiso nidaamkii u degsanaa jadwalka uu maro miisaaniyaddu sanad walba iyadoo waqti loogu talagalay in la fulin doono mid kasta xilliga loogu talagalay waxaanu rajaynaynaa inaanu sanadka soo socdana aanu ka sii horreysiino xilliga aanu golaha wasiirada iyo golaha wakiilada u gudbinayno oo uu noqdo jadwalkaasi jadwal waafaqsan sharciga miisaaniyadda lagu dhaqo waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu